marmarka qaar marka aad istaagto maxay indhaha ku madoobaan oo dam ku dhaxan oo aad u wareertaa mase tahay wax aad looga walbahaaro intaana ka jawaabeen dhagaystayaal. halkani waa xarunta sayniska iyo taariikhda. dhagaystayaasha sharafta badan waxaan idinka codsanayaa taageerista xaruntan cusub ee lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed. kanaalkeena YouTube-kana waa xarunta sayniska iyo taariikhda. fadlan waxaan u baahanahay 1000 subscribers si aan u soo galo live-ka YouTube-ka ee igu caawiya. wad mahadsantihiin. jawaabta su'aashaasi waxa weeye wax laga walbahaaro ma aha, wax weyn ma aha, waa arrin iska caadi ah, waxaana la dhahaa postural hypotension. dad badan ayay ku dhacdaa, siiba dadka ay hayso dhiig yaraanta, haba u badnaadaan dumarka iyo dadka tabarta daran. su-aashu waxay tahay maxaa sabab u ah postural hypotensionka? postural hypotensionka waxaa sabab u ah marka uu ruuxa jiifo ama fadhiga uu ku raago ama jiifka, waxaa dhacda dhiiggiisa inuu u shumo xagga hoose ee jidhka sida lugaha. marka uu ruuxa istaago sikadiis ah, waxaa dhacdo in qaybtii sare ee jidhka sida madaxa inuusan dhiigga si fiican u gaadhin, waxaana dhacdo markaasi inay indhaha dam ku dhaxan oo aad waxba arki weyso. weliba waxaa suurtagal ah inaad dhinac u leecdo oo aad derbiga qabsato. marka waxba ha ka walbahaarin, marka aad fadhiga ka kacayso mise jiifka, waxaad yeeshaa si tartiib ah u istaag. hadday tahay wax ka badan 1 daqiiqa inta indhaha ay ku madoobaanayaan ama ay aad kugu soo noqnoqoto xaaladda noocaasa, waxaa suurtagal ah inuu ku hayo xanuun qarsoon oo aadan ogeyn. siiba dadka waaweyn waxaa muhiim ah inay arkaan dhakhtarka. waad mahadsantihiin. ha iloobin haddaad wax un ka faa'iiday inaad videogan si share gariso. assalaamu calaykum waraxmatullahi